marka what is an audit? Auditku ama hanti dhowrku muxuu yahay? hanti dhowrku waa an assurance function, waa xaqiijin, waa dib u eegis, waa ma aragtay waa marqaati gelin, wuxuu marqaati u yahay directorka financial statementskii uu soo diyaariyey deetana xisaabiyaha uu ka soo hubiyey. ilaan xisaabiyuhu wuxuu u shaqeeyaa hoggaanku u shaqeeyaa, ma aha xubin madax bannaan. saa darteed maadaama ganacsiyada qaarkood baaxaddoodu ay aada iyo aada saameyn bulshada ugu leedahay, saamilayda qaarkoodna ayban present ahayn ama xaadir ay ku ahayn ganacsigaas waxa ka dhacaya, waxaa muhiima inuu jiro hanti dhowr. hanti dhowrkaasoo qeyb ka ah xaqiijinta financial statementskan lasoo qoray integritygoodu inuu wanaagsan yahay, reasonable assurance waxa la yidhaahdo, ama xaqiijin ma aragtay aada iyo aada loogu qanci karo in uu ninka auditorka ah uu usoo gudbiyo milkiilaha ama saamilayda. marka an auditor waa xubintii saddexaad weeyaan, waa relationship ahaan markaan fiirinayno waxaa waaye milkiile, wakiil oo wakiishay oo xisaabiyey oo financial statements usoo diyaariyey, iyo hanti dhowrka oo marqaati gelinaya waxa uu ninkasi soo diyaariyey inuu yahay wax la qaadan karo markii la fiiriyo cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda. 100% sax waaye ma oran karo, sababtoo ah wax walbaba hal uma soo baarayo, laakiin sample basis u baarayaa, cilmi wuxuu adeegsanayaa, kadibna wuxuu u marqaati kacayaa the statement of financial position gives a true and fair view. in statementigaas ama bayaankaas uu yahay mid saxan oo ma aragtay aragti laga dheehan karo saxnaan ay ka muuqato. wuu saxan tahay xataa afka wuu ka ilaalinayaa. the statement of financial position gives a true and fair view. marka an auditor waa the purpose of an auditor is to give assurance that the company's financial statements gives a true and fair view. marka waxa waaye an assurance waa xaqiijin, waa xisaab hubin waaye af Soomaali ahaan. xisaabtii la sameeyey ayuu hubinayaa, waa hubiye ama markhaati kace. waa independent, waa madax bannaan yahay, ma hoos yimaado managerkaas markaas la xisaabinayo ama xisaabi xilma laha lagu qaadayo, wuu ka sarreeyaa. taasaa waxay keenaysaa inuu hadli karo, in uunan ka baqaynin salarigiisii in hoos loo dhigo oo maaragtay jaabka loogu shubo wuxuu doono iska soo qoro. marka waa an independent an objective opinion waa inuu bixiyaa, waa madax bannaan yahay. waxaa looga baahan yahay judgment, waxaa looga baahan yahay inuu xukun rido, inuu rido. waxaa laga yaabaa inuu maaragtay maxaan kudaayay wixii lasoo diyaariyey oo dhanba uu ku tilmaamo waxaan la qaadan karin, oo arrintaasi saameyn ay ku yeelato shaqada hogaamiyaha lagu ceeriyo arrintaas darteed. waxaa laga yaabaa musuq maasuq inuu soo saaro, waxaa laga yaabaa maaragtay waxyaabo badan inuu maaragtay uu soo saaro, sababtoo ah wuxuu leeyahay access aanan caadi ahayn. kambanigoo dhan goortuu doono iyo meeshuu doono ayuu ka baari karaa, waktiguu doono. waa open access, ha ahaato soft copy ama ha ahaato hard material, wuu baari karaa hanti dhowrku. marka true and fair maxay tahay? the auditor confirms directors did a reasonable job. auditorka ama hanti dhowrku wuxuu confirmation ka bixinayaa in hoggaanku iyo maaragtay xisaabiyeyaashoodu ay soo diyaariyeen shaqo lagu qanci karo. haddayna soo diyaarinina maaragtay maxaan kudaa waa arki doonaa waxay qabanayaan. marka an auditor must have the experience and competence required. waad dareemi kartaa nin xukun ridaya, ninku markuu xukun ridayo waa inuu xog ogaal yahay, waa inuu xog hayaa, waa inuu yaqaanaa ganacsiga uu maaragtay uu baarayo, waa inuu experience khibrad u leeyahay, waa inuu ganacsigaasi kaga badiyaa kan leh meesha aqoontiisu, waa inuu kaga badiyaa kan meesha iskala qodhiisu, waa inuu yahay competent waxbarasho
iyo maaragtay aqoon iyo xirfad intaba waa inuu yahay competent, waa inuu yahay xirfadle aad iyo aad laiskugu halayn karo go-aanadiisu. Elements of an audit marka maxaa ka mid ah marka waxyaabaha aasaasiga u ah hanti dhowrku? waa inay jirtaa agency relationship, horta xiriir saddex geesood ah oo u dhexeeya hanti dhowraha iyo milkiilaha iyo agaasimaha waa inay jirtaa. hawshii ninkii lahaa, ninkii loo soo agaasimay iyo ninka ka hubinaya xisaabaadkaas waa inay jirtaa. waa inay jirtaa appropriate subject matter, maaragtay wax la eegaya inay jirto waa qasab. ma financial performance ah, ma waxaan eegaynaa financial statementska inay saxan yihiin, ma waxaan eegaynaa in maaragtay maxaan ku daayay mashruucan la qabtay mashruuc waafi uu yahay, ma waxaan eegaynaa maaragtay maxaan ku daayay quality-ga shaqaalaheena inay yihiin maaragtay mid saxan. waxay ku xiran tahay subject matter, wax cayiman uu qabanaya waa inay jirtaa. wax walba qaba I'm gonna audit everything macquul maaha, waa inay jirtaa topic cayiman oo wax ka qabanayo. waa inay jirtaa criteria, hab uu u qabanayo waa inay jirtaa. caadi ahaan international financial reporting standards ayaa maaragtay maxaan ku daayay criteria waa halbeeg caalami ah ee adduunka oo dhan ay isku waafaqeen. marka halbeegaas wuu ku cabirayaa maaragtay wax walba uu qabanayo. halbeegaas oo lagu jaangooynayo cadeymahaas. marka framework oo la soo dhisay, regulated body, hadda maaragtay waxaa jirto international financial reporting standards, waxaa jirto international auditing standards, wixii dhan international adduunka oo dhan wuxuu noqday hal magaalo oo kale oo cid walba ay qayb ka tahay, oo cid walba laga doonayo inay ka noqoto xubin hawshaas iyo nooca loo qabanayo. marka insha allahu tacaala financial reporting maadada ayaa aada uga sheekeynayso standardskan, insha allah waan arki doonaa. reporting waa inay jirtaa, cid la wargelinayo waa inay jirtaa, oo ama warbixin la siinayo. cid la wargelinayo ama warbixin la siinayo waa inay jirtaa. reportingka marka wuxuu noqon karaa appropriate. auditkan aan qabanay waa wax maaragtay la qaadan karo, sufficient ah ama reasonable. way reportingka xataa darajo kale leeyahay. waxaan aan aragnay waa waxaan ku qanci karno, waa wax aan qalad ka muuqanin, waa wax aan maaragtay la qaadan karin. marka waxaan ku qanacno markii la yidhaahdo iyo waxaan qalad ka muuqan markii la yidhahdo way kala duwan yihiin. iyo wax aan la qaadan karin markii la yidhahdo limited insurance, marka assurance aan dhehe limited assurance. marka stages of an audit, tallaabooyinka ay maraan hanti dhowrka aan ka sheekeyno. marka hore waa appointment, waa doorasho. caadi ahaan kambanigu waxayna is dhegeysanna insha allah. caadi ahaan kambanigu wuxuu leeyahay sanad walba annual general meeting waxa la yidhaahdo. sanad walbo fadhiyuu leeyahay. fadhigaasi waxaa lagu dooranayaa sanadka soo socda cidda noqon doonta hanti dhowr. planning, hanti dhowrku waa inuu qorsheyn sameeyaa. qorsheyn ayuu sameynayaa scope-kii ama baaxadda maaragtay maxaan ku daayay hawsha uu eegay intay la eg tahay, hawshii maaragtay maxaan ku daayay ciddii qaban lahayd, inta saacadood oo ku aadayso. qorsheyntaas oo dhan laga rabaa. taaskayaasha uu qabanayo waxay yihiin, qaybta uu ganacsiga ka eegi doono, waxaasoo dhan qorsheyna u baahan tahay. planning system ayay u baahan tahay. waa usii degi doonaa insha allah. understanding the business waa waqti inuu u helaa in ganacsiga uu fahmo bilow ilaa dhammaad process, maaragtay inuu fahmo processka ganacsigaas uu ku shaqeeyo. waa inuu fahmaa risk assessment, khatarta ganacsigaas soo wajihi karta, caqabadaha soo wajihi kara waa inuu yaqaanaa uuna ka diyaar garoobaa khatartaas. waa inuu u diyaariyaa qaabka loo wajihi karo, responding to the risk ama managing the risk. khatartaasi sida uu ku joojin karo waa inuu maaragtay maraa. marka haddii markii intaasoo dhan uu soo maray, haddii auditorku ama hanti dhowruhu uu filanayo xakameyn adag iyo nidaam aada u qurux badan inay hay-addu ay ku socoto,
waxa uu sameynayaa internal control systemska nidaamyada lagu xakameeyo ganacsigaas ayuu wuxuu ka qaadayaa test nidaamyadii uu test ka qaadayaa waxaa la yidhi kambanigan cid walba oo shaqaalo ka ah waxay leedahay passwordyo u gooni ah afkaa laga yidhi waa inuu eegaa test uu ka qaadaa inta ma aragtay maxaan kudahay kambanigaas u shaqeyso sample 100 hadday u shaqeyso 10% uu ka fiiriyaa kulligood uu interview ka qaadaa uu arkaa markay kambaniyada ma aragtay markay galayaan kambaniga computerkiisa inay password ku galayaan inay password la galayaan waa inuu arkaa inay passwordyada kala qaadan karaan waa in uu arkaa in qof walba la iska siinayo nidaam furan iska yahay because integrity waxa la ilaalinayaa kambaniga la ilaalinayaa controlkii waxa la yiri iib kasto hebel un baa ma aragtay dalabka bixin karo cid kale ma bixiso dalab markii la galo ordering marka wax inaan iibina rabno ordering the inventory ama ma aragtay maxaan ku daayay badeecada markaan dalbanayno hebel un baa amar bixin karo waa inuu fiiriyaa documenti ahaan waxaas wax jira miya ma waa inuu fiiriyaa amarkii sida loo bixinayo goorta la bixinayo oo kambaniga u dhex yimaada marka controlski loo sheegay sidaanaan sameynaa sida wax qurux badan loo qoray oo intii la ag fariistay wixii waa inuu soo eegaa physically inay jiraan kadibna test uu ka qaadaa waa inuu fiiriyaa testigaas marka haddii uu ku qanco if test of controls is satisfactory testigii wuxuu sameynayaa restrictive substantive test waxa la yiraahdo wuxuu sameynayaa baaritaan xeel dheer oo ma aragtay maxaan ku dahay cayiman baaritaan xeel dheer marka la yiraahdo substantive testiga caadiga ah bilow ilaa dhammaad qofka waa inuu baaraa laakiin restrictive mid wuxuu leeyahay la xuduudeeyey marka waxa waaye wuxuu ku qancay in controlada ama xakameynta nidaamyada jiro inay shaqeynayaan sample uu ka qabanaya macnihi haddii laakiin uu ku qanci waayo oo unsatisfactory nidaamyadii haddii unsatisfactory hadduu yahay oo uuna ku qancin wuxuu sameynayaa wuxuu u sheegayaa those charged with governance board of directors ayuu u sheegayaa golahu la fariisanayaa wuxuu u sheegayaa nidaamyada la sheeganayo ee waraaqaha ku qoran inay yihiin nidaam ineffective ah oo aanan la isticmaalin run ahaan marka reportingkii uu sameynaya wuu la tashanayaa kadibna undertake full substantive test marka waxa waaye meel walbuu baarayaa marka haddii wax walba hagaagsanaan lahaayeen oo controladii la sheegay ay jiri lahaayeen meeshuu ku ekeen lahaa report soo saari lahaa laakiin nidaamyadii la sheegtay maadaama ay iska yihiin magacyaal wuxuu sameynayaa baaritaan dhab ah marka oo bilow iyo dhammaad leh substantive test kadib marka wuxuu sameynayaa dib u eegis financial statementski review uu sameynaya dib u eegis uu sameynayaa auditorska naftirkooda waxay leeyihiin an auditor lead auditor audit manager principal audit manager maaragtay senior audit manager iyaga naftirkooda waxay kala leeyihiin garaado ama darajooyin ay kala leeyihiin officeskaas darajooyinkii marka mid walba waxbuu qaabilsan yahay kuwa ugu sarreeya ay marka review processka sameynaya marka kadibna waxay ka heleen action plankii ama waxyaabihii wax in laga qabto doonayay ayay managementiga la qaybsanayaan inta aynan si aynan iclaaminin ilan caalamku waad ogtihiin waxani waxaa waay reportkan waa report public ah waxaa lasoo dhigayaa internetka lasoo dhigayaa waxaa loo kambaniga websitekiisa waa in lasoo geliyaa si saamileyda go-aan ay uga gaadho in kambanigaas raasimaalkoodii weli ugu sii jiro inay la baxaan sidaa darteed waxani waa public document waa ina marka ula tashtaa managementigii waxaan idinku helay raalli magu tihiin cadeymahoodina waa kanaa raalli aan ku nahay wixii way jiraan maaragtay waa naga warbixin kartaa kadibna wuxuu warbixintii uu public marka uu soo dhigayaa marka prepare auditors report waxay diyaarinayaa reportkii ama warbixintii auditorka